السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا سلام صاحبي الملك استو أدوني ذك جوكتان وحن رجيني أنا أتعاف ما تخبطان إن شاء الله. هدي أنكو سؤال داودي انتهاء البرقسي دقيقة ساعة مالين أسبوع بال أما سنة أياد نولان كرتا أما سعون كرتا كبلان يعني وحنو لجيدا انتهاء أياد أودا إناد كبلان صعطو شقد هذا آدو قوبت هذا وحبرشو إيو إناد مقالك آدبا intee ayaad awoodi kartaa inaad kaba la'aan socoto waxaan rajeynayaa jawaabta su'aashaas dhammaantiin inay nagu adag tahay laakiin sheekadani maanta ayaa ku saabsan nin u dhashay dalka Ingiriiska oo lagu magacaabo Ben da'diisuna tahay 35 jir ayaa muddo 4 sano ah iska daayay xirashada kabaha waxa uuna isagoo kaba la'aan ku dhex lugaya caasimadda dalka Ingiriiska ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta ninkan ayaan xarago iyo isla weyni u daynin xirashada kabaha balse duruuf xirashada kabaha ka soo gaartay uga haray sida uu warbaahinta u sheegay waxa uu xirashada kabaha u daayay in uu yahay dadka lugaha aadka uga dhidida kabihiisana ay sameyn jireen ur ama shiir ka dhasha dhididka oo sida uu sheegay fadeexad iyo nacayb badan dadka ugu qaadeen isna takoor iyo cuqdad ku beertay ninkan ayaan muddo 4 sanadood ah kabo cagihiisa gelin oo gu iyo jiilaalba kaba la'aan lugaya waxa uuna isagoo cagacad ku dhex lugaya barafka yaala wadooyinka magaalada xilliyada qabowga jiro halka waqtiyada kuleelka jiro ee xagaagana uu kaba la'aantiisa ku lugayo jidadka laamiga ah ee aadka u kulul ninkan ayaa ka warramay waayaha nololeed iyo waxyaabaha uu kala kulmay bulshada muddadii 4 sano ahayd ee uu kaba la'aanta ahaa kuwaasi oo isugu jiray dhexgalka dadka iyo aragtida ay dadku kaga falceliyaan iyo duruufaha ama dhibaatooyinka ka soo gaartay ugu horreyn waxa uu ka warramay sida ay dadku ula yaabi jireen markii hore ee uu bilaabay inuu cagacadaan socdo taas oo sida uu xusay aad uga adkayd in uu jawaab sax ah siiyo qofka weydiiyay sababta ku kaliftay kaba la'aanta waxa uuna yiri aad bay igu adkayd inaan u jawaabo qofka i weydiiya sababta aan kaba u soo xiran waayay xitaa haddii aan run u sheego way adkayd in la iga rumaystaa laakiin waxay taasi dhamaatay markii aan kalsooni buuxda yeeshay ee aan isku kalsoonaaday ninkan ayaa ku nool xaafadda Kensington ee magaalada London waxaana suuragal ah in maalin walba 100 qof ay arkaan oo ay iyagoo la yaaban ka wareystaan waxyaabaha ku kalifay inuu kaba la'aan ku dhex socdo magaalada su'aalaha ugu badan waxa weydiiyay haweenka iyo caruurta oo sida uu sheegay ah kuwa ka naxariis badan ragga kuwaas oo uu tilmaamay in waqti badan ay ku qaadato fahamsiinta duruufta kaba la'aanta ku kaliftay ninkan ayaa ka warramay dhibaatada naftiisa ka soo gaartay kaba la'aanta sida qodxaha quruuraxa iyo waxyaabaha dhibaatada leh ee dhaawac ama xanuun gaarsiin kara lugihiisa waxa uuna yiri waad ogtihiin in London tahay magaalo weyn oo dhibaato badan jidadku yeelan karaan waxa dhici jirtay inaan maro meelo dhir badan oo qodax badan ay ka baxdo ama meelo ay dhalooyin ku jabeen ku istaago ama aan si degdeg ah ugu joogto ama ugu istaago sigaar markaas la tuuray oo aan weli damin balse dambas yeeshay oo aan arkaynin laakiin nasiib wanaag waxaas oo dhamma dhibaato badan iima geystaan oo aad ayay u yar tahay halista nafteyda ka soo gaartay ama inta jeer ee aan ku dhaawacmay ee lugaha wax dhaawac ah iga soo gaaray ayuu yiri ninkan I've never had such a horrible cut that I've had to rush to hospital or anything like that. I do occasionally get tiny little bits stuck into my skin and they won't just come out on their own and I have to go and explore with a little needle and find them and take them out. And that doesn't happen a lot, maybe 2 or 3 times a year or something like that. ninkan ayaa ugu dambeyntii ka warramay kalsoonida ay ku beertay haweeneyda ay lamaanaha yihiin ee lagu magacaabo Carolina Leo oo iyadu ku taageertay kuna gacan siisay in uu kaba la'aan ku dhex lugayo magaalada walow aysan iyadu kabaha tuurin oo sidiisa oo kale kaba la'aan ku dhex lugayn wadooyinka haddana taageerada ay u muujisay ayuu ku dooday inay kalsooni badan naftiisa gelisay oo uu awood badan ka helay Hi Ben. Hello. How are you? All right. daawada mawduucayna maanta halkaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa haddii aad ka heshay mawduuca fadlan like saar lana wadaag asxaabtaada kale waa inoo muuqaalkiisa xiga insha Allah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh